qisadii malaayiinta qof ka ooyeen ee Qays iyo Layla. Qisadaani Layla iyo Qays waa tii ugu yaabka badneed ee dunida soo marta oo ay ka oohisay dad badan oo mucaashiqiin ah. Buuraha, webiyada iyo badaha waa ka markhaati jaceylkooda xanuunka badan. Qisadaani waxay dhacday xilligii boqortooyadii Cabdilmalik bin Marwaan ee dowladdii Umayyiinta. Mucaashiqii Qays magaciisa oo dhammaystiran waxa uu ahaa Qays bin Mulawah bin Musaaxim bin Cadas. Wuxuu dhashay 440kii Hijriga. Wuxuu ku soo barbaaray maskax badnaan iyo fariidnimo. Qays aabihii waxa uu ka dhaxlay gabayada Carabta iyo sheekooyinkoodii. Qays aabihii wuxuu baray garashada xidigaha iyo guuraha habeenkii. Marka aan intaan kaga harno arrimaha Qays, Layla waa saaxiibadii Qays. Magaceeda oo dhammaystiran waa Layla bintu Mahdi binu Sacad binu Mahdi binu Rabiica. Waxay dhalatay 444 Hijriga oo halkaas waxaa ku cad in uu 4 sano ka weyn yahay Qays. Layla waxay la soo barbaartay qurux badnaan iyo laba indhood oo wax sixiraya. Dhirirkeeda iyo jirkeeda wuu isku dheelatirnaa. Waxay u dhalatay caddaan iyo qurux siyaada ah. Qays iyo Layla waxay ahaayeen 2 carruur ah oo ay isku keeneen qaraabadu, oo xagga nasabka waxay ahaayeen ilmo adeer. Ariga ayay u raaci jireen ehelkooda. Sidaa kama aysan suulin ilaa ay weynaadeen oo Layla ka xijaabatay Qays sida ay diintan Islaamka farayso, taasoo kicisay jaceylkii iyo uhilowgii uu u qabay Qays Layla. Asiga oo yaraantii arki waayey quruxda uu hadda ku arkayo. Wuxuu arki jiray Layla oo aan ka xijaabanaynin. Markaas ayuu yidhi asiga oo calaacalaya sida tan: Layla, naawaad weynaatayo, waa adigaan xijaab isku waabaye. Waafiyaha jirkiyo waxyaha qurxoon waad iga dadoo. Waayaha dhulkan wada joognay baan weli sii arkaa. Wakhtigii tegiyo waagaan yareen alloo yaa wareeg dib u weeciyo. Ina geeya waab iyo waadigii webiyada badnaa. Markii la ogaaday labadooda jaceylka u dhaxeeya waa la kala fogeeyey, oo Qays ayaa loo diiday in uu yimaado Layla agteeda. Haddana iyada oo Carabtu u aqoon jireen ceeb in ay wiil iyo gabadh sheeko dhex marto, Qays waxaa soo food saartay murugo oo waxaa saameeyey